الله لا 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 يسدو عن نقول الصوت هلو 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 ما مقليسان وريك شنت اللي حكدك شنت اللي حكدك واريدو سيما ديرايد السلام يا السود يا لابتي بسوي لاوي ادبان دي السلام يا تانينا افكا مره ما ماشي كما مقنا ادي ادبان دي السلام يا دمانتين بشوينta Soomaaliyeed ee ku xiran radio tima dheere waxaan maanta idin hayaa maadaama ay radio tima dheere waxaan maanta idin hayaa wacyi gelin baan bariyahan oo dhan waday arrimaha bulshada maanta tiitan way ka duwan tahay idin ma oranayo maanta bahalka afka lagu xidha ama khiid muun ama maskaraad soo xidha ama farasoo ibsada waxba way iska bedeli waayeen idin mana oranayo lookaaladii iyo meelihii dubnada ku ciyaari jireen ee madoobaaday ee markeeda aad gashaba intaan feerasku bilaamid baad ku hindhisay hargab halka qaaday ka iska daaya idin mana oranayo haysi salaamin oo banaanka isku salaamina idin mana oranayo koox ha u kulmin oo ha sheekaysanina idin ma oranayo taas oo dhan idin ma oranayo wuxuu baan idin oranayaa ilmaada reyaal waxa jira xalay toole wararka waa daawateen newsletterka waa daawateen tidniyadu waxa ay qoreen dadkan waddankan degan Sweden waxa ay akhristaan journalka la yiraahdo Göteborgs-Posten Aftonbladet Industri saddexdaba waxay qoreen fooshkarayaaliman aqoon la yahanaba la wareyshanay waxa la yiri meelaha ay u badan yihiin ee dadka faafinaya ugu badan waxa weyn dadka ajaanibka maadaama ay dadka ajaanibkii faafinayaan waxa la yiri dadka Soomaalida Stockholm Rinkeby Tensta Malmö Roslund Göteborg Hammarkullen Hjällbo Persson Förndatoriet Piskop dhammaan dadka waxaan u sheegayaa meedalaadahaygan wuxuu leeyahay I sent the message kan dadka u sheegay waxa weeye waxba meel la tagina waxba ha oranina laakiin dadka bulshada aynu ku dhaxnoolahay ee Swedishka ku dhaxnoolahay su'aalaha idin ka imanaya waxba ha oranina ha oranina arrintan waa arrin qafiifa qof waliba uu dhimanaya aniga iyo inan kale ayaa muqaaxi ka shaahineynay meel restaurant cafeteria ka shaahineynay nin la shan la yiraahdo oo TV u shaqeeyo ayaa meesha fadhiyay laakiin shaqadii waqtiga shaqada kuma jiro xaram uu duubay su'aal buu dadka weydiiyay nin Iiraaniya qoladan iyo Iiraaniya buu weydiiyay su'aal ee gaalada South daba orda markaas uu ka war coronavirus ninkii uu umar dilaaciba ayo beedente wallahi dahamiski isfaariya yo beedi economy waba oo hibo ka markaas mid kale xagga naga xiga weydiiso bal ka war arrintaas waa arrin culus wallahi wax laga kama qaban karo arrinta ma garanayo annaguna weydiiyay mar baanu kelmadooda nidhi haday mar baanu kelmadooda waxaan nidhi qof baa jira 200 sano noolaanaya qof kale wuu dhimanaya waxaan waa iska feeris hargabkiyo kale weey wax weyn ma markaanu ka baxnay ayaan warhaade hargabka aad aragteen ama Soomaalidana aragteen ama xanuunka ay arkeen imaka Talyaaniga meesha la yiraahdo Iwanga idinku Iwangi baa tirada Iwanga baasha qaldina Iwanga saaw akhriya Iwanga Talyaaniga ka qaaday score meesha cadum ka bilaabmay ka qaaday xanuunka Fred loo eg tush maalintii sabtidii axadii isniin salaasadii 3 cisho oo kaliya baa waxa Talyaani dhintay 1895 war xanuunka noocaas ah la kulanteen xaguu jira ee aleedin waa iisi mataasa iisi maninka saaxiibadii geerootay walaalkii geerootay faranskiis gubay islaantiisi la gubay ayaad oran ayaan leedahay arrintan waa qof waa iisi war waxba haysta badbaadinina ee dadka ummadda idin la degan ka daaya kelmadan nacasnimada ee oranaysan ee iisiga leedin waxan waa iisigan ka daaya idinku banaankiina iska taagnaada laakiin waxaan idin sheegay joornaalku xalay tolo wuxuu qoray meelaha janabka tirada 12 bay maraysaa baa la yiri dhimashadu Soomaalida inta qaadayna lama garan kare ee xanuunka la noolo la soo xareeyay
waynu sunni maadna guriyahaynu wada degannahay markaa waxay noqonaysaa markii hore waxa diiwaanka inoogu jirta far baa lagu fiiqay janabkaynu ka duwan far baa lagu fiiqay waxa la lahaa waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan bulshadeen haddii reactionkiini taa ku celisay qofkii meelaha iska taagan yahay idinku aydan waxba odhanayn waxa loo dadkan waa dad juhalaa wadadan waxba akhrin way ceebayseen radio tima dheer waa ceebayseen fooshkarayaashu waa ceebayseen filosof raggi hayay islaha bayloodada kici ama bluunka kici cirka uu diray hawada ka sheekeynay waa ceebayseen waxbarashadeen iyo dadka aqoonta leh Soomaalida dhulka jiideen banaanka taagantiin iyo waxana iisiga ka dhiganaysaan waa nagu ceebayseen waxa la moodaya lama moodayo dadkani dad ilaahay yaqaano oo isla xanuunka ilaahay baa kale la moodi maayo waxa la mooday dad jahala oo waxba akhrin oo waxba maqlin baa leeyna moodaya adduunka inta leeg wararka waa ogtiin waxa weeyaan inaan afka fahmin baa loogi waxa la yimid ilaa cad waxay ka hadlayaan Soomaalida ha loo diro ciidamadan banaanka jooga duurka ayaa wadamada sida ogtiin wadamada heegan baa la galiya heegan hadii la galiyo ciidamada cidda loo soo diray waa umroodaha Soomaalidu degan tahay ka xaaxaabi iisi ka dhigatay ka xaabi masaajidku waa furan yahay jimco kaliya la xiray lookaladu way furan yihiin meel way furan yihiin leedika Mareykanka meesha la dhaamo yaani meel kasta way furan yihiin waxa weeyaan askar marka lagu soo diray askarta kamarada adduunka ku soo qabtaan awalba naf ma ilaan meesha kuma inaan san qurbaha la inoo soo diray askartii la inoo soo diray umroodaheena aynu degan dadka waa la kala degay umroodaheena askar loo soo diro ka xaabiya radio tima dheer waa ku ceebayseen way ku ceebayseen Soomaaliyay waxaad leeyahay waxba hays qabanina waxba meel tagina inta askartaas idin imanaysa waqtigaas idin imanay waxaynu noqonay percentage-ka marka saa loo eegay dadka ifaan daraaraha waxay noqonay score-ka inaga haysana wuxuu yiri nin foosh karaa ayaa nin dhakhtar waxay dhaheen Soomaalidu maba ogaba ma haya what wuxuu noqonayaa waa dad jahala way radio tima dheeralka jahadooyin bay igu jiraan istaa barnaamijka soo saarta tiraahid halkaas ay igu tacjadeen shahaadooyinkayga waxaan isleeyahay saa hor dhigto tiraahid waxaan dhakhtar le cudurrada qalliinka guud wax kasta qala meey aqoonteeni meed arday jaamacada ka baxaysa maxaa waxa hindidu markay yaabaan waxay yiraahdaan ha khuda waxa weeyaan waxaan idin leeyahay oo idin kaga tagay radio tima dheere war sii share garee clipkayga oo sii gudbi waxba hays badbaadnina waxba ha xidhanina waxba ha sameynina war bulshada idinla noolun ka daaya kelmadan jiricsan ee aleedin waxaan waa iska hargabo kale liin cab fatiin cab waxaan idin sheegayaa xitaani waan soo daayay arintaas waan ka cudur daaranaya ninka dhaha liin cab iyo basbaas cuniyo waxaan cun waa xarig waana la dabagelaya hal la joojiyo hal la joojiyo arinta war kun iyo 895 ba saddex cisho dhintay ma dadku miyaan ilaahay miyaan dad ahayn waxani waa radio tima dheer war haddaydan ooyi karayn wuxuun baa tiraahdan waani arintaas waa arin culus iga fogow dadka xodhay ninkan waa nin wax fahansan iga fogow waxaan leeyahay nahihe sidaas inoo ballana waxa kale oo hal qodob oo kaliya ku daray waxaan wadaa basaska dhaadheer magaalada cid badan lama joogo basaska waa ka wii xiray halka 3 mitir leegama soo galay halkaas ka soo halka aniga kaliya ka gala waa ka dadku halkaas ay fadhiistaan leeyma soo gali karo leeyma soo dhawaan karo qof isu dhawaan kara ma jirto ya harbaan tusay baraaday suga tartiibtiin horaan yara hindidu markay yaabto ma tira khuda halka anigoo kaliya degan shaqadaydii yarayd waa taa albaabka aniga iyo kayga bedelayo ma soo gala waa taa way xiran tahay cidina iimayman karto halkaas qofku waa noo farmaqoon ma arinta noocaas ay halka xaaladu halka marayso ee loo soo dhawaan karin su'aal ay ka ayaa leedin waa hargab waa caynka waa sida war haddaydan ooyi karay sida eeraanta iyo dadka dadka waxa tiraadaan arinta waan ka xumay aad baan idin salaamay hadalka waan dheereeyay waa radio tima dheer le shahaadadaydii ka kac haddii askari soo gasho umroodaha aan deganahay oo la yiraahdo dadka caamada qabqabta sorry